Askar ka tirsan ciidanka Uganda ayaa 6 maalmood ku dhuumaalaysanayay saldhiggii ay qabsadeen Al-Shabaab ee Buulamareer. 4 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ayaa 6 maalmood isqarinayay si ay uga badbaadaan Al-Shabaabkii la wareegay saldhiggoodii Buulamareer. Afhayeen u hadlay ciidamada Uganda ayaa sheegay in askartan ay ka badbaadeen weerarkii Al-Shabaab iyagoo ku dhuumaalaysanayay gudaha iyo hareeraha saldhigga la weeraray ee Buulamareer. Waxa uu sheegay in askartan la helay kadib markii ciidamada Uganda ay dib ula wareegeen saldhigga Buulamareer oo Khamiistii toddobaadkii hore la weeraray. Waxa uu sheegay in askartan la helay kadib markii ciidamada Uganda ay dib ula wareegeen saldhigga Buulamareer Khamiistii toddobaadkii la soo dhaafay. Markii aan saldhigga ku laabanay ayaan la kulannay askartan oo aad u tabaryarayay gaajo iyo haraad daraadeed sababtoo ah waxay noolaayeen oo ay ku badbaadeen kaadidooda oo kaliya, ayuu yiri afhayeen u hadlay ciidamada Uganda. Waxa uu sheegay in mid kasta oo ka mid ah uu kaligiisa ku dhuumaalaysanayay meel gaar ah. Warkan ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweyne Yoweri Museveni uu sheegay in 54 askari oo Uganda u dhalatay lagu dilay weerar 26 bishii hore lagu qaaday saldhigga Buulamareer. Uganda ayaa Soomaaliya u soo dirtay koox uu hogaaminayo taliyaha ciidanka dhulka si ay u baaraan weerarkan. Museveni waxa uu si gaar ah farta ugu fiiqay 2 taliye oo uu ku tilmaamay in ay qalad sameeyeen, isaga oo sheegay in ay ciidamada ku amreen in ay dib u gurtaan.